السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسولو الخليجي عشر كان حوك سابسياي سيدا لو دكسد جدولك مالنتي سيدا او shaqeyn lahayd sida aad wax badan uusan kugu darsamin waxaa laga yaabaa dad qaarkood inay kaa subdal badan waqtigaada waqtina si inaad fiirisid jadwalkaada sida aad wax ku heli karta jaaniskaada insha Allah waxaan rajeynaa cashirkan inaad ka faa'iidi doontaan wax badan aad ku kororsan doontaan insha Allah markuu horeyso Excel soo kicay badana Excel ayaan ku shaqeyn doonaa insha Allah Excel version walba kugu jiro start button click ku sii kadibna Excel qor okay Excel ka markaa sidaas u qortid kaliya waxaad sameynaysaa blank workbook dooro kadibna qaybta kor waxaad ku qoraysaa maalinta aragtid day ayaad qoraysaa tab leh kadib day maxaa waa maalinta aragtid inaad jadwalkan degsatid waa Saturday jadwalka maalinta taariikhda ama date-ka waxa waaye tusaale ahaan 0 maanta camal ka soo qaad keyboardka waxaa leedahay si fudud control semicolon ayaa leedahay isla wuxuu ku soo qabanaa taariikhda maanta hadaan fiirin waa Thursday ama Monday waxaan rabnaa jadwalka soo noqon doona insha Allah okay maalintaasi interno select garay intaasi bold dheh oo bold laakiin oo geesa asna stroke leh okay meeshan waxaan ku qoraynaa time-ka to do list waxa la qaban lahay okay labadan column isku fur okay mark and center leh qaybtan soo qaadayna mark and center leh waxaasna hadda saa ugu sameyn kartaa mark and center inaad dhahdid laakiin waxaa kaga fudud inaad sameysid control C control V delete garay meeshan soo eli internet time-ka okay intaas waa muhiimadeena okay waxaan rabnaa time-ka ugu horeeyo sida ayaad u qori kartaa markuu ugu horeyso waxaad ka bilaabaysaa waqtiga salaada muhiim waaye subaxdii hore inaad ka bilaawdo waaye jadwal aniga isticmaalo waaye waa bedeli kartaa choice-kaada iskale mar wal ma ahan sambalka aan ku sii inaa raadid 11 saac iyo 45 daqiiqo ilaa 11kii waa habeenimo oo subaxnimo aan dhahe maxaa qabtaa preparing inaa isku diyaari prayer salaad inaa isku diyaariyo ayaa intaan sameeyaa okay 11 saac ilaa 11 saac 20 waa xilliga salaada salaad inaan dugto intaas waaye 11 saac 20 ilaa 12kii waa dhigi kartaa intaas maxaan sameeyaa reading Quran okay 12 saac ilaa 12 saac iyo 20 ama 12 saac iyo 20 maxaan sameeyaa idana jadwalka saan u isticmaalo waaye maxaan sameeyaa exercise jimicsi ayaan sameeyaa oo sambal waxaa rabta ayaad ku qori kartaa jadwalka ma ahan inaad sidee tahay u qaadatid 12 saac iyo 20 waxaa la rabaa jadwalka time-ka bilow time-keed inay isku jaango-an yihiin la rabaa ilaa 12 saac iyo bar wash qabays waad qabaysanayaa adeeg kugu taalaa hadee waxay ku xiran tahay jadwalkaada ma ahan inaa xilligaas qabaystid 11 saac 12 saac ilaa bar ilaa 12 saac 50 maxaan sameeyaa intaasni waxaan sameeyaa breakfast waan ku raacdaa xilligaasi breakfast waxaa la rabaa 24 hours inaad dejisid inta hadaad sameysid maalin walba jadwalka
وجدول فريق ونقناه. اوكي 12 ساعة كونتون 12 ساعة كونتون إلا هل ساعة 25 دقيقة صباحدي هروحي on walking street shaqada wadada aan aadi lahay ayaan dhaadaa 12 saac hal saac ilaa 25 daqiiqo hal saac 25 daqiiqo ilaa hal saac iyo konton. intaas waxaan sameeyaa to do list for my customer to do list my customer. maalintaas shaqada customerska aan qaban lahay ayaan taxayaa si aysan igu qaldamin customer cusub hadday yimaadaan, si aan u jahwareerin oo jadwalka aan u fiirsado inaan shaqada aan qabanayo. okay hal saac iyo konton ilaa 6 saac maxaan hayaa shaqo walking my customer. intaas waxay ahayd 6 saac. okay 6 saac ka bilaab hadana 6 saac ka bilaab ilaa 7 saac maxaan qabtaa waa xilligii salaada break and lunch waa qado iyo salaadaada at 7 saac markaa soo noqdo ilaa 9 saac waxaan qabtaa dane walking my customer cusub hadday yimaadaan. 9 saac ilaa 10 saac waxaan qabtaa iyadana break salaad dukasho and coffee. okay 10 saac ayaan shaqada kusoo laabtay ilaa 11 saac iyo bar waa xilliga ugu dambeeya shaqada aan ka baxay waayo. maxaan qabtaa xilligaas iyadana waxaan qabtaa iyadana walking my customer haddaan itooq celi haddii jadwalkaada uusan ku jirin 11 saac iyo bar ilaa 12 saac iyo bar maxaan qabtaa waxaan aadaa on walking street my home and pray. waa salaada iyo xaafad inaan ku aado. okay 12 saac iyo bar ilaa 3 saac iyo bar waa habeenimo maxaan qabtaa iyadana rest waa iska nastaa nasiino ayaan iska qaataa waa xilligaasi 3 saac iyo bar ilaa 5 saac iyo bar maxaan sameeyaa iyadana habeenkii walking waxaan sameeyaa inta badan inaan wax akhriyo reading using computer and design. intaas ayaan qabtaa. okay 5 saac iyo bar ilaa 10 saac iyo 45 daqiiqo waxaan sameeyaa sleep waan hurdaa. okay jadwalkaas saa markuu u degsan yahay 24 hourskaada markaa shaqeynaysid waaye. okay insha allah jadwalka ardaydana waan soo diyaarin doonaa waa idinla soo wadaagi doonaa insha allah. jadwalkan wuxuu ku saleysan yahay 24 hours waxaa qabanaysid waaye. waxaa laga yaabaa in shaqooyinkan hadda aan listi idinku soo taxay shaqooyinkayga aniga aan qabanayo inay tahay. okay jadwalkaada mararka qaarkood haddii magacaada inaad qoran kartaa maalin walba xad looga soo gasho directed picture device dooro desktopka dooro loogada waatana. okay soo select garee hostan keenso oo hal column kali ku sii qaybtaas kor insert row kale ku darso soo jiid markaa inta keenso. okay timekan waxay ris weynayso geysaa loogada ka jiid ana yaray hadhow printer aan leedahay maanta shaqooyinka aan lahay waa kana bishii waxaa sameyn kartaa celcelis
wixii listi wixii beerdar ah mar qaarkood jadwalkaada maanta haddii isbedel uu ku dhaco excelkaada edit waaye waa bedeli kartaa isla markii maalinta kaleeta bisha camal markii la gaado maxaa qabatay bishii hore xilligan oo kale wixii aad qabatay isla markii waad arkaysaa insha allah intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.